waxaa lagu bishaareynaya dhammaan macaamiisha isticmaasha application-ka Waafi in lagu soo daray qaab fudud oo aad lacag ugu diri karto dalka Kenya. Marka si aad lacag ugu dirto dalka Kenya waxaad tagi doontaa halka ku qoran tahay send. Markaad soo gasho qaybta send kadib waxaad dooran doontaa halka ku qoran tahay M-Pesa. Halka markaa furto waxaa lagu weydiin doonaa markaa inaad geliso qofka aad lacagta u dirayso numberkiisa. Sidoo kale note-ka xagga hoose ku qoran wuxuu kuu sheegayaa markaa inaad iska hubiso numberkan aad lacagta ku dirayso qofka inuu sax yahay. kadib aan iminka number baan wataan ku paste gareynaya. So numberka markaa halka geliso kadib next baad taaban doontaa. Kabacdina waxaa lagu weydiin doonaa markaa inaad doorato wallet-ka aad doonaysid markaa inaad lacagta ka dirto. For example iminka kaas baan dooranaya aniga. kadib markaa halkan timaado waxaa lagu weydiin doonaa markaa inaad marka hore iska eegto qofka lacagta u diraysa receiver-ka xogtiisa inay sax tahay. markaa ku qanacdo kadib waxaa sameyn doontaa inaad geliso lacagta u dirayso. Tusaale iminka $20 baan gelinaya. Intaa wixii ka dambeeya markaa application-ku wuxuu ii sheegi doonaa khidmadda laga jari doono. Sidoo kale wuxuu ii sheegi doonaa sarifka lacagta iyo qofka lacagta u dirayso intuu ku heli doono lacagta Kenya shilling. intaa wixii ka dambeeya markaa xogtan oo dhan ku qanacdo waxaad taaban doontaa lacag dirid. Waxaan rajeynayaa muuqaalkan inaad wax badan ka faa'iiday. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.